nabadgelyo iyo naxariis xagga Ilaahay ka ahaatay korkaaga ha ahaato. Magacayga waa Sarona Kumar. Quraanku wuxuu sheegayaa in Ilaahay meel waliba joogo. Kuwa kalena waxa ay sheegayaan in Ilaahay meel waliba joogo wax walibana uu arko. Midkood xitaa wuxuu inoo sheegayaa in Ilaahay uu ruuxdeena ku dhex jiro. Haddaba haddii Ilaahay shay waliba uu ku dhex jiro, maxaynan u caabudaynin sanamyada? Iyada xitaa soo Ilaahay kuma dhex jiro. haddii aysan sidaa ahayn, haddaba halkee baa laga helayaa Ilaahay? Fadlan ii sharax, aad baad u mahadsan tahay. Walaalku su'aal wacan buu na weydiiyey. Sidoo kale walaal, nabadgelyo iyo naxariis xagga Alle ka ahaatay korkaaga ha ahaato. Wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Su'aal wacan buu na weydiiyey walaalku in lagu sheego Quraanka in Ilaahay meel waliba uu joogo. Muslimiintuna aaminsan yihiin in Ilaahay meel waliba joogo, xitaa Hinduusku aaminsan yihiin in Ilaahay meel waliba joogo. Haddaba waa maxay dhibka ku jira in sanamyada la caabudo? Ilaahay sanamyadan uu ku dhex jira, dadkan uu ku dhex jira. haddaba waa maxay dhibaatada ku jirtaa in sanamyada la caabudo? Walaal, ma jirto meel kamid ah Quraanka oo lagu sheegay in Ilaahay meel waliba uu joogo. Ma jirto meel Quraanka kamid oo arinta lagu sheegay. waan ogahay inuu jiro qalad dhanka fahanka ah oo haysta in badan oo muslimiina, midkaas oo sheegay in Ilaahay meel waliba uu joogo, waxaana Quraanka lagu ma sheegin. Quraanku wuxuu sheegayaa awoodda Ilaahay waa joogtaa meel waliba. waa awoodda Ilaahay. aayadda ku jirta suuratul Baqara suuradda 2 aayadda 115 meel kasta oo aad u jeesataan waa jaha alle waxay la micno tahay awoodda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Ilaahay wuu maamulaa meel waliba oo kamid ah caalamka, laakiin jumlada ah Ilaahay wuxuu joogaa meel waliba Qur'aanna laguma sheegin, xadiidna laguma sheegin. waan ogahay inay jiraan muslimiin badan oo qaladkaas aaminsan. arinta lama sheegin, laakiin awoodda Ilaahay meel waliba waa ay joogtaa. haddaba su'aasha ah, halkeeba Ilaahay laga helayaa? maxaanse u caabudi la'nahay sanamyada? halkee Ilaahay laga helayaa? Quraanku wuxuu inoo sheegay in Allah uu carshiga ka sareeyo. waxaa jira xadiid uu haweeney nabigu weydiiyey, halkee buu jiraa Ilaahay? kadibna kor ayuu u ishaartay. nabiguna markaa wuxuu yidhi, waa mu'minad. haddaba Ilaahay carshiga ayuu ka sareeyaa, carshiguna biyaha ayuu ka sii sareeyaa, welibana 7 samo ayuu ka sii sareeyaa. haddaba dadka kuma jiro ee dadka wuu maamulaa. Allah wuxuu leeyahay annaga uga dhow xididka dhunta. waxay la micno tahay inuu wax waliba Ilaahay og yahay adiga kugu saabsan. awoodiisuna waa ay ku dhowdahay. taa micnaheedu maahan in Ilaahay xididka dhuunta uu ku dhex jiro, ma ahan micnuhu sidaa, balse waxay la micno tahay in Ilaahay awood leeyahay, welibana uu ku dhow yahay. wax waliba ayuu og yahay, awoodiisuna meel waliba ay gaarsiisan tahay. xitaa caleenta geedku sooma dhacdo in Ilaahay u idmo mooyee. hadda aanu imaado su'aashaada ah, maxaanan u caabudin sanamyada? marka la eego Quraanku wuxuu leeyahay suuratul Maa'ida suuradda 5 aayadda 9 asnaamta in la caabudo waa xaaraan. waxaa mid la mid ah haddaad akhriso Bhagavad Gita juska 7 faqrada 20 dhammaan kuwaasi qoro walaal, waa Bhagavad Gita juska 7 faqrada 20 dhammaan kuwaasi caqliga laga xaday, welibana dhanka maadiga u jaranjeera waxay caabudaan wax Ilaahay lala simay. haddaba dadka maadiyiinta ah asnaamta ayay caabudaan. haddaad akhriso Jaandoogiya Upanishad juska 6 qaybta 2 faqrada 1 waxa uu leeyahay Ilaahay waa keli, mana lahan wax labeeya ama wax isaga la mid ah. sidoo kale waxaa lagu sheegay Shvita Shaftara Upanishad juska 6 faqrada 9 ma jiraan ilaahyo isaga la mid ah, mana lahan wax waalidiin ah, yacni ma lahan laba waalid oo isaga dhashay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma lahan umana baahna aabe, walaa hooyana uma baahna mana laha. ma jiraan wax Ilaahay ka sareeya, sidoo kalena ma jiro rabbi kale oo isaga ahayn. waxaa lagu sheegay Shvita Shaftara Upanishad juska 4 faqrada 19 ma jiraan Ilaahay wax lamida oo isagoo kala ah. mid lamida waxaa lagu sheegay Yajurfida juska 32 faqrada 3 ma lahan Ilaahay wax lamida. Ilaahay ma laha wax sawir ah ama wax isaga u eg. haddaba markaad samaynayso sawir Ilaahay u eg, adiga waxaad khilaafsan tahay buugaagta Hinduuga. haddaba dhammaan buugaagta Hinduuga sida Yajurfida Bhagavad Gita dhammaan waxay ka digayaan in Ilaahay sanamyo loo sameeyo ama suurado lamida. haddaba si aad u hesho macluumaad badan waa inaad imaataa muxaadaradeeda aan qabanayo axadda soo socota oo ciwaankeedu yahay isku ekaanshaha ka dhaxeeya Hinduusamka iyo Islaamka. mawduucaana si faahfaahsan ayaan uga hadli doonaa. xitaa Hinduusamka ayaa xaaraantinimeynaysa in asnaamta la caabudo. oo maxay sanamyada u caabudaan? sababtoo ah wadaadadooda ayaa waxay leeyihiin fikirkooda gaarka ah, iyadoo ayna suuragal tahay inaan xitaa arrintaa radinno. haddaba imaa muxaadaradeeda isku ekaanshaha ka dhaxeeya Hinduusamka iyo Islaamka insha Allah macluumaad fara badan ayaad heli doontaa. waxaan rajaynaynaa su'aashaada ka jawaabay.